على ضوء إعلان الصفقة الأمريكية الولايات المتحدة لم تكن عضوا في عصبة الأمم. kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarteena la socota waxaad nala daawateen khudbadu maanta jeediyo aad loo sugayay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas Abu Maasin. khudbadaasi waxa uu ka jeedinayay golaha jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masar. waxa uu ahaa shir degdeg ah oo isugu yimaadeen wasiirada amuuraha dibadda ee dalalka jaamacadda Carabta ku bahoobay. khudbadiisu waxay ahayd mid ka duwan khudbadihii waayadii ugu dambeysay Abu Maasin uu jeedinayay ee la xiriiray arrimaha Falastiin iyo qadiyadda Israa'iil kala dhaxaysa intaaba. Abu Maasin khudbadiisa dhinacyo badan ayay taabanaysay. shirkana waxa uu ahaa mid degdeg ah oo wasiirada amuuraha dibadda ee dalalka jaamacadda Carabta isugu yimaadeen. waxaa lagu falanqeynayay bal jaamacadda Carabtu sida ay go'aan uga qaadan karaan waxyaabaha loo yaqaan sifqatul qarni ama heshiiska qarniga ah ee dawladda madaxweyne Trump ee Mareykanku ay dhawaan soo bandhigtay. arrintaasi ayaa si weyn loo gorfeeyay. heshiiskaasi haddii aan dib ugu laabto waxyaabaha maamulka Trump uu soo diyaariyay ee ku qoran isla markaana Falastiiniyiinta iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ah ka daadegi waayay ayaa waxay ahayd in la dhiso laba dawladood oo ishareero yaala oo Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu ay kala leeyihiin. sida muuqatay Abu Maasin khudbadiisana uu ku soo bandhigay isagoo lahjad adagna wax ku sheegay siro badanna soo bandhigay. waxa uu yiri 70% dhulkii Falastiiniyiintu ay lahaayeen gacanta ayaa loo galiyay Israa'iil. magaalada Qudusna waxa looga dhigay in caasimad abadiye ah ama caasimad rasmi ah u noqon doonto Yahuud ama Israa'iil. waxa dhinaca kale uu sheegay taasi inaanay noqonayn mid reer Falastiin iyo guud ahaanba shacabka dalkaasi iyo madaxdiisuba aanay gorgortan ka gali karin. khudbadiisa waxa uu soo qaaday dhinacyo kala duwan. waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu la kulmay ilaa iyo 4 jeer. mar waxaan kula kulmay buu yiri magaalada New York, marna waxay ku kulmeen dalka Masar, mar kale waxay ku kulmeen Baytulaham oo dhulka Falastiin ah, marna waxaynu isku aragnay buu yiri Saudi Arabia. dhammaan waxaynu ku hadalna buu yiri arrimaha la xiriira qadiyadan iyo sidii Falastiin iyo Israa'iil xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka haysta. Maxamuud Cabbaas Abu Maasin oo Carabta aad moodo maanta inuu kula hadlay lahjad adag oo muujinaysa bal in iminka la jooga carabnimada in wax la isugu qaban karo ayaa dhinaca kale waxa uu yiri inta aan aniga kursiga Falastiin madaxnimadeeda ku fadhiyo marnaba suuragal noqon mayso taariikhda dalkayga Falastiinna lagu qori maayo buu yiri in Israa'iil Qudus ay caasimad u noqoto annagana aan aqbalno halkaana aan qaadano. waxa uu yiri shacabka Falastiiniyiintu maanta laga bilaabo heshiisyadii ay kula jireen Mareykanku waan baabi'inay, waan ka baxnay, arrintaana ma qaadan karno. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday in arrinta Qudus iyo sida laga yeelayo iyaguba ay meel u tiila laakiin looga baahan yahay in wadamada ku bahoobay jaamacadda Carabta iyo dalalka ururka iskaashiga muslimiinta ku jira loo baahan yahay in arrintaasi ay wax ka yiraahdaan. khudbadiisa waxyaabo fara badan ayuu dhinaca kale ku soo qaaday. waxa uu sheegay in madaxweyne Trump aanay marnaba ula muuqan xaaladda sida uu Abu Maasin u arkay sida uu yiri. waxa uu yiri madaxweyne Trump waan u tagayay, waynu kulanay 4 jeer, waan wada hadalnay, laakiin wax kasta aan u sheego si fiican buu u dhageysanay. waxa uu ahaa nin si hoose ila arkay waxa aan wado markasta in wuxuu leeyahay ama uu oran jiray buu yiri waad saxan tahay, waa arrin wanaagsan arrinta nabadda Israa'iil iyo Falastiin laga shaqeeyo. dawladdeedu waxay u saaran tahay miiska hore in arrintaasi mudnaanta koowaad aynu siino. Abu Maasin arrintaas waxbaynu ka qabanaynaa sidii dawladihii hore Mareykanka ulama dhaqmi doono. waan ognahay dhibka haysta reer Falastiin. laakiin markii aan ka soo laabtay buu yiri Trumpkii aynu wada hadalnay ee ninka wax badan isku ogeyn maaha. waxa uu sidoo kale sheegay in dawladdiisa isaga uu ka tirsan yahay waa Abu Maasin Falastiin iyo waliba xarakada ama xisbiga uu qaybta ka yahay. waxa uu yiri Fatah in iyagu ay diyaar u ahaayeen in xitaa CIA-da iyo dalalka kale sida ay u arkaan ururada daaqiliga ah ama dibadda jooga ee argagixisada la dagaalamaya ee qayb ku noqdaan inay gacan siinayeen. laakiin iyaga taasi loogu abaal gudaya buu yiri
in xiriirkii laga jaro, in kaalmooyinkii la siinaya laga jaro, in cadaadis xoogan ay la kulmaan, dowladda Maraykankana aanay dhex ka noqon karin xaaladda hadda taagan. Maraykanka waa dowladdii labaad ee aqoonsatay Israel markii heshiiskii Balfour lagu shaaciyay in Israel la siiyo dhulka Falastiin, halkaasna ay ka shaqeyso. Balfour haddii aan dib ugu laabto wuxuu ahaa wasiir qaarijiye ka tirsanaa dalka Britain oo isaga Israa'iiliyiinta u ballan qaaday hadda ka hor in uu siin doono dhul ay leeyihiin kadib markii dagaaladii dunida ka dhacay dhibaatooyin badan Israa'iiliyiintu ay kala kulmeen. waxyaabaha kale uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah sida Israel qadiyadan taagan ay xal qudhooda uga arkaan ayuu Abu Masin qudhiisa ka hadlay. Waxa uu yiri waxa noo muuqanaya buu yiri intii Netanyahu uu xafiiska yimi ma ahayn waa ra'iisul wasaaraha ee Israel hadda jooga ma ahayn nin nabad jecel oo sida aan nabadda u raadinayno ama aan xalka u rabno ama aynu u doonayno bal in caqabadana soo daashatay ee dhibaatooyinka badan 60kii sano ee ugu dambeysay aan xal ugu helno isagu marnaba xalka uma muuqan. waxa uu sameynayay dhibaatooyin taagan, weeraradiisu joogto ayay ahaayeen, dad fara badan baa la baabi'iyay, waxa la weeraray daanta galbeed, sidoo kale waxa la weeraray buu yiri magaalada Gaza oo ay Xamaas ka taliyaan iyo Ismaaciil Haniye kooxda uu hogaaminayaba. marka waxa uu yiri inaga hadda Falastiiniyiin hadaynu nahay nooma muuqato arintaas inaan qaadno. waxyaabaha kale ee yaab kale oo intuu qudbeynayay muuqanayay waliba qudbadiisa oo ku dhawaad saacad qaadatay waxa uu yiri waxa uu soo qaaday qariiradii ay ku sawirnaayeen sida Falastiin ay ahayd brisamaad intaana Israel ku habsan iyo sida hadda ay tahay isbedeladii dhacayay. waxa uu yiri 30% ayaa dhulkii reer Falastiin lahaayeen maanta ka soo haray, 70% waxaa gacanta loo galiyay buu yiri Israel. marka suuragal naga noqon maysa arrimahaas inaan qaadano. waxyaabaha kale ee taariikhda iyo diiwaanka taariikheed galaya ama sooyaalka Maxamuud Cabbaas Abu Masin ninkan hogaamiye Falastiin lagu xasuusan doono waxa uu yiri intii aan aniga kursiga ku fadhiyo oo aan taariikhda dalkayga laygu qorayo oo la leeyahay xilliga Abu Masin baa talada hayay igama suura gasho igana suura gali mayso Maraykanka iyo inta la bahiyaan ku riyoon buu yiri in Qudus aan u aqoonsado caasimad Israel ay leedahay oo waliba masjidkii barakeysnaa ee Aqsa oo ku yaala loo baahan yahay buu yiri muslimiintu inay si wada jira arintaas wax uga yiraahdaan. ugu dambeyntii ayado Quraan Kariima ayuu ku soo gabagabeeyay qudbadiisii oo aad u dheereyd aad u xamaasad badnayd mararka qaarna shucuur adag laga akhrisan karay wajigiisa Maxamuud Cabbaas Abu Masin. waxana uu yiri way iga go'an tahay in arinta Falastiin aan geed ku soo xiro Israa'iilna aan arinta ay mudan tahay nagala kulmaan laakiin geed dheer mid gaaban hadii loo fuulo suuragal ma aha buu yiri gorgortan yar in la geliyo dhulkeena mana aqbali doono waana ku dhagnaanayna Maraykanka arinta oo wadana saaxiibadayna ha ogaadaan wax badan baan xiriiriyay waxna ma qarin doono. saaxiibadayda Carabta ee la fadhiya wasiiradooda amuuraha dibaddana ogaada la wadaaga waan diidnay ma qaadan karno mana soconaysa buu yiri arinta. dhinaca kale qudbadiisii markay dhamaatay Abu Masin oo Carabtii joogtay iyo wasiiradii ay si fiican u falanqeeyeen waxa sidoo kale hadlay wasiirro kala duwan oo dalalkii joogay Carabta ahaa matalayay mid kasta ay waxa uu sheegay inaanay suuragal ka noqon karin inay taageeraan qadiyadda Maraykanka ee heshiiska qarniga waxa loogu magac daray oo ilaa 2016 soo socotay laakiin ugu dambeyntii soo banbaxday isbuucan oo ujeedadoodu ahayd xalka laba dowladood oo isbarbar yaala oo Israel iyo Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Carabtii shirka ka qayb gashay dhammaantood waxa qalinka lagu duugay oo dhacay arintaasi oo la sheegay inaan la qaadan karin. Maraykanka waxa uu soo bandhigay maamulka Trump waxa uu wado iyo in 30% dhulkii 100% Falastiiniyiinta ay lahaayeen la siiyo. Abu Masin qudbadiisa hadii aan dib ugu laabto waxyaabaha kale uu sheegay waxa uu yiri waan ogahay Netanyahu iyo dowladdiisa waxa ay arinta salaasadii Trump uu ku dhawaaqay ay aad ku soo dhaweeyeen ay bilaabi doonaan dhismooyinkii dalka ay ku soo durqaan iyo dadka in la barakiciyo iyo dhibaatooyinka hore u jiray inay dhacaan laakiin inagu ma aqbali doono wixii dhacana Maraykanka ayaa qaadan doona inaga dambi ma lihin waxaynu nahay dad lagu xadgudbayo
falastiinna waxay noqon doontaa buu yidhi falastiin ilaa falastiiniyiintu ay u taagan yihiin qadiyadooda. falastiinna maalin maalmaha ka mid a waxay noqonaysaa buu yidhi xur madax bannaan oo taariikhda dunida lagu qoro. waad mahadsantihiin akhyaarta inala socotaay falanqayntii koobnayd aynu ku sameynay khudbaddii abumaasin iyo kulankii deg deg ahaa ee looga warramayey arrintii maraykanku ay soo bandhigeen oo loo yaqaana heshiiskii qarniga ee safqatulqarni la yidhaahdo ee la xiriiray sidii laba dowladood ay u noqon lahaayeen falastiin iyo israa'iil loona kala saari lahaa, oo runtii dad fara badan iyo dalal fara badan ay dhaliileen. ayaan intaasi kusoo gabagabaynaya anigoo cabdicasiis barrow ayaa khudbaddan dib idinku falanqaynaya. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ula socoteen. waxaad ka daawanayseen janalka wacaal media. fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan si barnaamijyo kale iyo tixanayaal kale iyo sheekooyin kale aad uga heshaba kusoo biir oo subscribe dheh. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. daawada nabadgelyo.